رم باكون قميصا وتكون ما يسنسا إن شاء الله تعالى إحنا كقال كرتنا بدك runtii maxamed abiib waxay xukuumaddu ku yeerinaysaa waa xaq uu sheegayo wax kulmiye la ilaaho maanta ciise uu cod u haya habeeratay ma jirtay taha ku biya cabaan nimankan idoor maal deyntu maxamed abiib kale ka soo baxay reerka ayuu mad xukuumadda haysataan Ethiopia dulasi waayo aan qarxaya imisan nin baa ku soo dhintay Ethiopia dhulka hore u qaadatay laga qaadan kari waayay dhul cusub oo la sii iska daay dadka gobolka awdal iyo Sirel joogaan haddaan nahay duqeydiis xaqa asiga sidaan ku garab joogna gobolka awdal iyo Sirel qaalib uu ku yahay waa xildhibaan qaran waana xildhibaan ka soo jeeda gobolada Sirel iyo awdal waxyaalo subaxa soo kacaysa adiga maayirka madaxdiisa la galaya subaxa soo kacaysa adiga barasaabkaas ku dhacay way qorshaan noolin istiraatiiji ma jiro wax 5 sano iyo qorshe yaalay danbaan ka arki weynay xisbi xaakimka kulmiye codka madaxweynaha inay siiyaan musharaxa isbeddelka ciro xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa uu kulan hadh masharafeeda ugu sameeyay salaadiinta odayaasha dhalinyarada iyo haldoorka ka soo jeeda gobolka Sirel intii munaasabadu socotayna waxa laga jeediyay hadallo kala duwan iyadoo si weyn ay u bogaadiyeen odayaasha iyo waxgaradkani xildhibaan maxamed abiib yuusuf waxaan naqnoo celinayaa xildhibaan maxamed abiib oo maanta halkan nagu soo riyeeyay annagoo ciiso oo dhan ka kooban waxaan leenahay xildhibaan aad baad u mahadsan tahay waa tii aynu isku lahayn weeye dadka awdal yaalla awdal waa ciisiya gadabuursi waa dad walaala ah weligoodba mataqaana is dhali jiray weligoodba wada ooli jiray waxaan leenahay runtii oon aad ugu faraxsanahay weliba nashaadka iyo firfircoonida maxamed abiib iyo sida uu dadka mataqaana sidoo xaqaaniga u yahay xaqa sidoo uu sheego runta sidoo uu sheego dalka waa la wada leeyahay Somaliland waa la wada ilaashanaya runtii waxyaabahan aad ula yaabo waxa kamid ah ee maskaxdaydu weydiiso Ethiopia dulasi ma dhageysto ma taqaan marka laga hadlayo hatta madaxweynuhu markuu hadlay ma dhageysto waan iska ilaaliyaa waayo aan qarxaya imisan nin baa ku soo dhintay Ethiopia dhulka hore u qaadatay laga qaadan kari waayay dhul cusub oo la sii iska daay waxa ma taqaanaa hadal hayaay waa wax ma garati waa dad aqoon gaaban Ethiopia dhul qaadanaysa waa been cidna yaanay rumaysanaysaa Ethiopia dhul aan deganahay ma qaadan karto intii hore ee isticmaalku siiyay baadi goobkiisii baa wali taagan wali fiintu way qayliyaysaa waa lagu jira waana laga qaadan doona haddii alla yiraahdo oo intii ilaahay gaarsiiyo marka labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba xildhibaan waa kaaga mahadnaqaynaa dalkeenana waan wada ilaashanaynaa runtii siyaasadaha socdaan qaybteedan ka qaadan doonaa haddii alla yiraahdo xildhibaan maxamed abiib oo run ahaantii nin Somaliland ku weyna dadkeega xukuumaddu waxay doonay haato iyadu waa tala dhaliilayee laakiin dadka Somaliland hadduu dan yar yahay hadduu mataqaanaa dhan la yar yahay hadday waa yeel yihiin hadday rag yihiin hadday dumar yihiin dhammaan uu ku qaalib ku yahay siiba gobolka awdal iyo Sirel qaalib ku yahay waa xildhibaan qaran waana xildhibaan ka soo jeeda gobolada Sirel iyo awdal run ahaantii de social media baan ka daawanaa waxa dhacaya wali ismayna arag mar aad baan ku habalyeynaa sida uu wado hawsha waxaad sheegaysaana waa xaq ilaahay maaha wax dulmiya ma hadalkaagu mar walba maalintii aad kursiga fuushay ilaa imika waxaad ka hadashay waa cadaalad baad ka hadashay iyo runtii wax beena midnaba ka mahad cidii kooriyaysa aku eriyatay ilaahay baa kugu jecel waa dariiqatu rasuulullah ilaahay baa kugu jecel rasuulkiisa kugu jecel in runta sheegto dadkaaga wuxuu bayaamiso wixii u go'aya dawladdan aad uga goyso ilaahay baa kugu jecel harima sharafeedkan maanta au sameeyay ciisaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xildhibaanada waa reerka ciisiga gadabuursalaya ma cid kala joogtaan garanaysa hadaa labadaba waa
ilaahay baa kaa dhigay kuwa kale darafyaha jooga Soomaaliland cidda doonaan hadaan adaa xildhibaan waayo qofku wax sheegay baa xildhibaana qofku runta sheegaya baa xildhibaan waa islaanta saqadlayda suuqa joogta cashuurta laga qaaday ninka waxay leedahay sheego baa xildhibaana ka waa run baad ku dhaqmaysaa waad ku dhamaysanaysaa insha Allah ta'ala xilka qaad kartaan ma jirto wixii lagu wariyayna waa runtana waxa weeyaan ilaahay sheegu yiri cidda ku dhamaysaa ku dhimato xildhibaan waxaan dhageysanay doodaadii aad ka jeedisay fagaaraha annagoon ku arag waxaan tix raacnay hadalkaaga aad iyo aad baan kugu hambalyeelaynaa waxaana ku leenahay insha Allah waad ku guulaysan xaqaad ka hadlaysid xaq weyn kastoo laga taarno haddana iska soo baxo dadka gobolka Awdal iyo Sanaag joogaan haddaan nahay duqeydiisi xaqa aad sheegaysid baan kugu garab joognaa waxaana ku leenahay xildhibaan wadan yaa tahay laba bulshadiisa u hadlay xaqana ku taagan aad iyo aad baan xildhibaan kugu garab taagannahay haddaan nahay duqeyda reer Muxuudaaya ee ka socota beeshiis walaalkeen xildhibaan maxamed abiib yuusuf jaamac ayaynu u mahad celinaynaa oo maanta qada sharaftan inoo sameeyey beelweyntii ciise inteedii joogtay oday dhaqmeed iyo siyaasi magaalada Hargeysa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay xildhibaan maxamed abiib beeshu dhamaanteed yar iyo weyn meel alla meeshay doontaha joogto ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka xaqa u heeliya ilaahay baa u heelinaya dhammaan dadku taageeradoodu sida maanta dadka aan aqoon isku lahayn baaqi maxamed abiib baa idin marti qaaday ay u soo ajiibeen ayay dadku dhamaanteed ku wada ajiibsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan jeenaynaa inuu ilaahay kuweena kalena ilaahay ka soo saaro kuwa rijaala oo xaqa u heeliya waayo haddii aanan dadku xaqa iyo wixii loo doortay iyo mas'uuliyadooda ay garan waayaan waa masiibeynteeda leeg waxayna ummaddu ku baabaaday weeyaan uu qarankeenu maanta ku dumay weeyaan haddii 5 iyo 4 nin oo sidaa ugu helis xaqa ka soo bixi lahaa baadulkoo dhanna waa suuli lahaa ilaahay ha ka abaal mariyo intaad walaalaha dan yartaa u doodayso aad iyo aadna waanu ku hambalyeelaynaayo dee nimankan idoor maalin walba waxaanu kula kaftanaa dee intuu maxamed abiib kale ka soo baxaya reerka ayuunbaad xukuumadda haysataan waayo maalintii dhaweyna xafladii isku biirkii ka iyo wadani baa joogo waxaa idhi maxamed abiib sidii boorama looga maalintii loo damaashaaday ayuu hool ku gariiray maalintiina marka waxaan waa hibe ilaahay aad iyo aad baan xildhibaano ku mahadcelinaynaa beel ahaan kolkaynu dhinaca walayna yar kala qoqobaayo danteena laynaga dhex raadiyaa laakiin maanta waxaan la egtii bushay ishii bugtay ku bukacso ku bukacsaan leenahay maanta dadku waa mid waxaan u mahadnaqaynaa xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo runtii ah sida annagu aan u haysano xildhibaanka xildhibaanada runtii maxamed abiib waxay xukuumaddu ku heliinaysaa waa xaqa uu sheegayo iyo runta auna ka gabanayn oo u sheegayo uunbay ku heliinaysaa wax kale lagu haystaa ma jiro xildhibaan aad iyo aad baanu kaaga maxil celinaynaa adigoo qadadan u sameeyey beesha ciise dhammaantood intaa haddaan dhaafo ciise maanta cid xukuumadda ama kulmiye horta ma jiro cid u codaynaysina oo beesha ciisiina oo kulmiye u codaynaysaana ma jirto ciise maanta wuxuu codaynayaa wadani buuna wada yahay aad iyo aad baan xildhibaan kaaga mahad celinayaa inta kasta waxaan mahad celinaynaa xildhibaanka lagu maamuusay halkan annagoo beeshii ciise abaafka lagama dhowray oo xildhibaanka u ahaa runtii kulay laba arrimood uma ka hadlayno ta koobaad waxa weeye xildhibaanku sida Cabdilaahi sheegay Cabdilaahi baa iga horeeyay waa xildhibaankayagii waa xildhibaan gobolka Awdal ka soo baxay oo deegaankeena waana xildhibaan danta guud ka hadla waxa lagu ereeyay dagaalka ugu jiraana waa deegaankeena deegaan noo kala soocan ma jiro marka afarta degmo gobolka Awdal ka kooban yahayba doorashada laga soo baxayba ninka hadla xildhibaan boorta isagaan hayna maalin dhexdaas soo wacay oo laha xildhibaankaas
ترى دي حلبان كلام ما هي دون بنو حلبان هقول halkii xildhibaane halka ka soo baxayna waa ki geeriyooday Allah u naxariisto xildhibaanka danta guud dadka ka hadlaya midaynaya oo baanaka noo xildhibaan taasa koowa hadan kulankaana waxaan kula kulanay maanta ugu imanay anagoo urur iyo xisbida kalahayn inaan beeshi ahaan xildhibaanka kula kulano ugana mahad celino difaaca iyo dib kastoo jira sida uu deegaanka uga hadlayna uga mahad celino ayaan ugu imanay runtii anu wadanka waxaan ka shaqeeyay waxaan barasa ku xigeenaha 2 sano iyo 2 bilood waxaan idin sheegayaa hal maalin one single paper oo la qiimeeyo oo la daba galo oo qorshe ah oo xukuumadda ka yimaado ama wasaaradda ka yimaado maanan arag subax soo kacaysa system laanta ka jirta dawladda ku sheegay waliba goboladii iyo degmooyinka xataa buug baan qoray dhexdaas oo maraya waxoogaa barigii ciidanka la jabiyay waxa iska daayay waa ka joogsaday markii waxa yaala subax soo kacaysa adiga maayirka madaxa isla galaya subax soo kacaysa adiga barasaabkaas ku dhacay way qorshaan noolin strategy ma jiro wax 5 sano iyo qorshe yaalay badbaadada qaranka waxay ku xiran tahay sideedaba in la taageero معارضك iyo isbedelka loo codeeyo taas muhiim ah horta sababtoo ah kulay mar kale aan akhrin doona insha Allah ta'ala laakiin muhiimadda meesha taali marka qof kasto aragtida diidani muhiim buu yahay xillaan maxamed abina anaka qaalib uu nagu yahay sida buurma ku yahay xariirada iyo habaas iyo abdul qaadir ku yahay geerisa iyo gargaare iyo hadayta ku yahay iyo sayrac iyo loo yacda saas ku yahay waa biyo kala dhamaantaas iyo loo haya sida gacanta loogu taayay si loogu dalbaadagay ayuu ka yahay marka qiimahaas nagu leeyahay taasana nimka halkaas isugu ka keentay xildhibaanku waa la kafto waxa uu leeyahay wada ciisa ku keentay siraado hadalkaygu ma gaarin inta korkaabe turba sida degdega inuu hadalkaagu si weyn u gaaray reerka taas cadeynaysa mid waa mahadnaqo waxaan u mahadnaqayaa xildhibaan maxamed abiib oo maanta beesha ciise say u dhameeyay hal doorkeedii halkan ku casuumay waxa leenahay jazaakallahu khair midna waa bayaamino Cabdilaahi waxa uu taqaanaan wadani reerka ciise leeyahay ama mamaasan leeyahay waa xildhibaankii wadan uga sharaxnaa buu annakii kulmiye uga sharaxnaa baan ahaa mamaasan waliba xisbiga kulmiye uga sharaxnaa uguna codka badnaa anigoo kulmiye ka sharaxnaa baan haddana maanta waxaan cadeynayaa inaan ahay aasaasiyaashii ururka ka dan baan ku arki weynay xisbi xaakimka kulmiye rajaan ku arki weynay mustaqbal baan ku arki weynay nolol baan ku arki weynay waxa aasaaska markii la aasaasayay nagu lifaaqay xisbi muxuu ahaa Allah xasamaanta inaga hooseeya Nuur Cismaan Guuleed Allah uu naxariisto inuu wada ducayno Ibrahim Sheekh Maxamuud baa ka fadhiya ragin la aasaasay maanta anagu waxaanu cadeynaa inaanu ka nahay codkayga labaadna inaanu siinayno musharax madaxweyne xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wax kulmiye la ilaaho maanta ciise uu cod u hayaa habeeraatay ma jirtay taha ku biya cabaan samiriiban baan leenahay halkaas taa markan ka imaado beesha ciise gees lama tu gees hal cod sibaan u dirayaa codka madaxweynaha inay siiyaan musharaxa isbeddelka Ciro codka ururnimada inay siiyaan urur siyaasadeedka ka Maxamuud Xaashi Cabdi intaasaan idin codsanna aad baad mahadsantihiin xildhibaankana mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahadnaqanaa qadadan sharafta leh oo noo sameeyay horta aniga muhiimad gaar ah ay leedahay fadhiga halkan maanta la isugu yimid oo xildhibaanka maxamed abiib yuusuf dheer baan isku leenahay aqoon hore isku maanu lahayn ina xasan warsama dhashay anigana aabay Muuse Ismaaciil Abtirumo ahaa oo waxa dhashay saxarla warsane laba ilmo abtiyo ruma yaana kala dhalay aniga maxamed abiib muhiimad gaar ay leedahay daawashada markaan daawado arrinka ii geeya arrinka walaalka ii geeya oo waji nasiib samaati ilaahay soo keenay kolku inta qada sharafka uu sameeyay aad buu mudan yahay wuxuu ka hadlaa mujtamac dadku ka hadlaa halku ka dhibaataysay ka hadlaa cidii eryanaysaana way iska daaliyo anigu inta yar ka hadlayay intii hore tolkay waxay yiri odayaashii hore inta barashada ahayd aad loo mahadsantii